maantay waxaan u baahanahay garab iyo hilib dawladeedii Canada inaad igu share gareysaan ma raba fiidiyogan intaad edit gareysaan فيديو إسكراجي هو بروفيشنال سيدا فنانين مدح هذا سوق اليوم الله وجه قرنا يصير قفك عودك معان داغد الله غلط يصير قفك أكتف كالله غريب وشغل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دلهانتي مالك استودن كاكا جوجتان سو دوادا كلنتي waxaan wanaagsan mar labaad muuqaal cusub mar labaad wala ku wardaanay YouTube ka subscribe saara soo kale video galay gareeya share gareeya la wadaag asxaabtina fikirkiina aragtidiina isku dayay inaad xaq hoose aad ugu reebtaan aad baan maasantiin mahad celintiinu mahamidaan ka daalino asxaabta qaaliga qiimaha sharafta leh waxaan doonayaa in istur taagno in ka wada warbixin hore ku sheegay xaaladda Umar Barbar wixii ka soo cusboonaaday gadaal baan insha Allah idinka la wadaagi doonaa baan yiri maxaa ka cusub xaaladda Umar Barbar xaguu ku dambeeyay ugu dambeyn waa la xiray ma dawladda xidhay ma dad ehelkiisa xidhay dadku way raadinayaan sababta loo xiray waxa soo dhan dadyo fara badan baa xiiseynaya waan noo hayo xog sax ah sidoo kale waxaan rabaa inaan istur taagno dadyo fara badan oo la xiriirinayo xaaladda Umar Barbar inay ku lug lahaayeen waxa kamid ninka Iskalaji la yiraahdo sidoo kale waxa kamid ninka la yiraahdo magaciisa DJ Suber oo runtii nin reer Soomaaliland waa nin DJ waa nin dalmara runtii bal muuqaaladaasi baan rabaa inaan istur taagno wixii xogaan ka hayo iyo dadkaasi waxay ka yiraahdeen sidoo kale Iskalaji isagana xog baan nooga haya bal soo dhawaada videoga la gareeya muuqaalka meel dheer hala gaarsiyo iyo waxba hadal idinku daalin waxaan doonayaa bal weed aragteen dadyo fara badan oo Iskalaji ninka la yiraahdo ka cabanaya waa fanaan anu shakhsiyan Iskalaji fankiisa aad aan u jecelahay laakiin qof shakhsiyan garan maayo qofku yahay wuxuu galay iyo wuxuu gudo aqoon ma leeyahay waan ku dambaabay hadaan iraahdo hebel waa waxa bal waxaan doonayaa mid kamid ah dadyoga ka faalooda saaxadda baraha bulshada ama arrimaha bulshada dhexdeedaba ayaan doonayaa in la yiraahdo Cali Xaraaro oo runtii barnaamij ka sameeyay iyo barnaamijkaasi qaabku ahaa inaan in yar idinka sii daayay ila daawada ما أستقبل warkan uu kala sheega iyadoo meel xun xaaladoodu marayso ayuu Canada tagay haye Canada abeed wastayda cawaala iyo qaylada ka baxday irka cawaala Djibouti waa kii intuu hadlay siguna yiri iyadoo meel fiican noo marayso oo aan dad walaalaanahay banin bila yimi ayaa midin kaar qaban naga yimi Minneapolis iyo Mareykan wixii qiyaasiyay madaxa isla galeen haye wuu ka tagay okay waa daawateen runtii ninkaasi Cali Xaraaro wuxuu eedayn weyn u jeeday ninka la yiraahdo fanaanka magaciisa la yiraahdo Iskalaji waxa uu u jeediyay eedayntaasi magaalo kasta ama dal kasta oo tago fanaaniinta ku dhaqan waxa uu sheegay inuu yahay nin naxli iyo xumaan kala dhaxdiga sidoo kale xog qarsooneed oo dadyo fara badan oo ummadweynta Soomaaliyeed aanay ogin buu meesha ka sheegay xogtaas waxa kamid ah in ninka la yiraahdo furle uu xitaa gabadh aan asma loo fahin uu u guuriyay Allahu a'lam waxa soo dhan anigoo horgeyso jooga anigoo xogogaala wala iga timoogi hadaba maxay tahay sababta eedaha culus ee mugii miisaan kale lagu jeediyay ninka magaciisa la yiraahdo Iskalaji eedeyntaasi loo jeedinayo Iskalaji isagu baa eedaasi iska rogi kara anigu qofku yahay aqoon mali Umar Barbar markuu uu muuqaalo fara badan soo duubay wuxuu eedeynayay nin la yiraahdo Ayub Carlo Captain Ayub iyo soo kale nin la yiraahdo Allahu musta'an Iskalaji dalka Belgium kan isku nimi waxyaalahan iyo waxan imika ugu dhacayo dhana iyaga u koowa uu sheegay hadaba inta markaan kaga imaado Iskalaji xalkiisa iyo eedeynta culus ninka Cali Xaraaro uu jeediyay waxa laga yaabaa muuqaalka in haduu daawado iyo haduu meel kale ka daawado inuu eedeyntaasi iska difaaci doono ninka la yiraahdo DJ Suberna fanaaniin fara badan sidoo kale abwaana fara badan baa ku xiran meediahana waa nin aad iyo aad looga garan og yahay Snapchat ku caan ka yahay aan dhalay waliba su'aalo dhowra waliba fanaaniin waliba wariyaal kala gedisan baa weydiiyay saddex wariyaan xusaya ninka la yiraahdo Maxamed Daahir waa nin dhalinyaro oo reer Hargeysa ninka la yiraahdo Cabdisalaan oo isaguna Universal TV runtii ka shaqeyn jiray waqti laakiin imika leh TV madax banaan oo isagu oo arrimahaas ku tabiyay in magaciisa la yiraahdo Cabdiwaahid wax noocaasiya oo isla waqtigan xaadirka ah kamida saxafiyiinta ka howlgala Sky TV magaalada Hargeysa ka dhisan saddexdaas bas su'aashaasi ahayd eliminate ama dadka lacagta caabida ama New World Order baad qayb ka tahay bal arrinkaas maxaad ka tirsan saddexdoodaba isku si
uga jawaabay oo waxa uu yiri anigu waxaasi shaqeeyo shaqo kuma lihi haddii aaban ku jiri la waxaana mandaqadan ama qaabkan aan ahay maan ahaadeen marka qofku inaad eedayso oo tiraahdo yani wuu ilaahay u shirki yeelaa waa mid subxaanallah ma fahantay marka waxa weeyaan eedaasi culus ee loo jeedinay ninkaasi dhiisho sweerna ilma adeeraya laga daayo qofka oranaya maanta new world order ama eliminated buu qayb ka yahay dhiisho sweer isaga dambi ku sugan waayo qofku wuu kufriyay soma marka si dhib yar qof inaad ku kufriso ha ku degdeg ilma adeero taas way ka talo inta markan kaga imaado waxaan doonayaa bal xaaladii ugu dambeysay ee ninka magaciisa Cumar Barbar inaad la daawataan. I am in Norway, Oslo. I'm talking to my government. I born 1987 June 2nd. My name is Omar Said Omar. Please, I need help my Canadian government. Okay, wuxuu ku xiran yahay dalka Norway. Haddaba waxa isweydiin mudan Cumar Barbar ma dawladda Norway baa xidhay mise dad eheladiisa oo halkaasi jooga baa xidhay oo si loo dajiyo oo baxnaano lagu sameeyo bay u xidheen wata isweydiinta mudan markaanu ila wareedi xogogaala aanu raadinay markaanu dad ka agdhow markaan dad Norway jooga oo arrinkan si qoto dheer la socda aan la xiriiray waxa la cadeeyay oo la sheegay in dad ehelkiisii ay xabsi guri ay ku hayaan oo ay يعني دبادة يو إنه يعني ذات كده حكلا بقى كإلا علينا هالكاسنا دخاتير يعني قفك نفسدي يسيدو كله تشينية أنت بقى لوك يعني أول وقتي مقال كان صوته ويحولي يبد بادية ذلك كندا بان مركزي أما سفارة كندا كل هذا عي ذلك نرويج بان مقال كان أدوه بيسيدو هذا القول مقال كي إن كندا اللي يجرسيو وحنا هيقولي هاي 60 سنة أما يعني وداني كنديانة إن ما دام حق ولا يهي ذلك كندا إن لي جرمدو أو لي غفرته ولا كعنتن عداوة إيه هاي ستا باقي سنة ذلك كندا مدولة كندا بقدرية anyway بيمل جدًا بس هو معتن إن واحد بدن عمر بربر حالة سبرها برشة وكسرنا نقطة إن مقال هرنا وكسمي إن تضيف ربنا أورير سومال لنا وإحنا أركي كومنتي يلسوا داقي ولا يقولها وروحنا ومتشر حبابين أي تتكاسي إنه متشر حبابين يعني حولها كده حبها وحن وجوابيا ورقف ولا الكايا وكل ميديا أنا تتكاي كان بعض أرتس كلا سكول راحتو أنا ودد ولا لاني ودد أشياء باني وان كنحنا وان قدام قناة هذه ما تدبات أنا جسوا قاعدين كلام ميديا كتيرة طبعا ويدم قناة سكستو عول عداوة يوجهيو وينين عن بح wadana hay waan bahwadaagnahay weey marka waxa weeyaan damqasho aan u damqanayo ninkaas Cumar Barbar ban xaaladiisa uga warbixinaya reer Soomaaliland had degdegina waxaan idin leeyahay wixii jiraba baraha bulshada way iman doonaan war jiraabaha ugu dambeyn cakaaro iman doonaan anyway aad ma sadin qalka iyo muuqaalka xigeen ku kulanno iyo walaalka wardaadan oo ilaa YouTube ka subscribe saara soo kale فيديو like قرية share قرية لو ذاك أصحابنا فكر يا رجل حد كقبطان يصل حق واسع نقول بس أصحاب تتقالي واحد ليه هي تاني مقاركة يمقارك حين كلنا يقول على ذي لا شيء نقول كلنا